بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارة الشرفت له وأن سلامينا أرنتان خير رئي سفر كيسبا laga hadlay siyaabo kala duwan looga hadlay waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaay u warbixiyo golaha maadaama aan goobjoog ahaa khayre waa la socotaan waa prime ministerka Soomaaliya arrimaha wuxuu u joogay galmudug muxuu ahaa labadii isbuuc soo dambeysay markii dambena wuxuu soo gaaray gaalkacyo arrimo ku saabsan isla galmudug markii uu gaalkacyo intuusan kasoo tagin cadaado wuxuu soo diray fariin uu leeyahay maadaama gaalkacyo aan imaanayo haddii aan gadiga galmudug aan booqdo waa jeclahay inaan gaalkacyo dhinaceeda kalena salaamo puntland adiga madaxweynaha markii hore isla xiriireen madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan jeclaan lahayn anagu in muxuu ahaay mar gaarana loo yimaado marka asaguna wuxuu yiri aniguna waxaan rabi lahaa inaan saacado dadka aan booqdo adigu hadalkaas xoogaa waa laysku u yimid in laysku yimaado oo go-aan la wada qaato xoogaa waa iska adkaatay communicationkii waxaa yimid wasiiro 4 ah wasiiradii markay yimaadeen waxay la kulmeen protocol ayuu leeyahay ra-iisul wasaare khayre waxay isku afgaran waayeen qaabkii muxuu ahaayey ra-iisul wasaare uu ku imaan lahaa dhinaca puntland wasiiradu waxay ku adkaysteen annaga nooma socon galmudug buu u socday mana doonayno siyaasadayadana ma ahan inaan inta dad soo saarno uu dhex galo oo uu muxuu ahaay ka dhex khudbadeeyo laakiin haddii uu rabo halkan inuu yimaado waxaan u sameyneynaa annaga wasiiradaha u tegayna waa keenaynaa dad kooban oo usoo diyaarinaynaa intaas baan anagu u sameyn karnaa kadibna waa celinaynaa meeshuu ka yimid baan u celinaynaa arrintaas xoogaa waa u cuntami weyday waxay yidhahdeen waa ra-iisul wasaarihii dalka wuxuu rabaa inuu muxuu ahaaye dareemo inay gaalkacyo ka tahay magaalooyinkii uu muxuu ahaaye ra-iisul wasaaraha u ahaa oo kale wuxuu rabaa inuu dadka u tago wuxuu rabaa inuu mashaariicda socota booqdo wixii uu ka qaban karo uu ka qabto waxaan rabnaa inuu dadka shaah la cabo wasiiradu waa diideen arrintaas xoogaa waa adkaatay waa soo dhexgalnay ismida puntland qaarkood iyo anigu saaka aroortii baa waxaanu tagnay hotel aljazeera waanu la fariisanay xoogaa dhexdhexaadin baan sameynay waxaanu niri ninku waa ra-iisul wasaarihii dalka dalkuna ma kala aha yani ma kala laha muxuu ahaaye xuduuda ma kala laha arrimo siyaasina annaga kala hadli mayno laakiin ninkan u ogolaada inuu magaalada yimaado dadka booqdo arko ciduu asagu awalba muxuu ahaay sheekay wadeene ciduu asagu uu wax u ballan qaadayo u ballan qaado muxuu ahaay asaguna ku qanca sidaa annaga si aysan sadbaag noogu yeelan oo hadhow mustaqbalka aanan u dareeminin muxuu ahaay waxaa loo diiday inuu yimaado dhinacii puntland inuu yimaado dadkaana waa taqaanaa cidna ma xukunto marka waxaanu nidhi intii odayaal iska socda inta tagaan ay baraxley ugu tegi lahaayeen intii dhalinyaro ugu tegi lahayd wayna ugu tageen of course intii dadku inta yaacaan halkaas marti ugu noqon lahaayeen dee sharafta ha laga xigo ha yimaado meeshiisa cidna waxba yeeli mayo annaga muxuu aha garaada nooga qaadi mayo arrimo siyaasadeed kala hadli mayno adigu wasiirada aniga iyo isimadu aad baan u cuslaynay waxaanu nidhi nimankan ha loo fududeeyo waa ceeb ilaa iyo shalay in laysku jiijiito ha yimaado iyo ma imaanayo markii dambe waxaan isla go-aansanay in muxuu ahaaye uu yimaado marka hore madaxtooyada yimaado dad loogu diyaariyo ilaa dhowr boqol ah ururada qeybaha bulshada ah kadibna uu garoonka booqdo istaalka booqdo jidka booqdo meelahaas booqdo jadwalkan waa midka aragteen oo warqadiisu ay sidaa tahay markii dadkii la diyaariyey oo dadkii qaarna lagu diyaariyey muxuu ahaayey meeshii madaxtooyada ahayd lagu diyaariyey garoonkiina dhalinyaradii soo buuxisay maadaama dhalinyarada waa iska taqaanaan garoonkoodana waxay rabeen in muxuu ahay contribution ay uga helaan ageyna de waa iska ogtahay dhalinyaro waxay iska rabtaa soo dhaweyntaas iyagoo siyaasad uma jeedaan garoonkii dhalinyaradu waa soo buuxiyeen markii ay soo buuxiyeen ballantu waxay ahayd 9 saac iyo bar in muxuu ahaayey ay ugu tagaan
wasiiradu ay ugu tagaan meeshuu degan yahay kasoo kaxeeyaan meesha shirka la keeno marka shirka 6 barka ay tahay garoonka booqdo marka istaalka meelaha la sii marmariyo markay ahayd 9 saac iyo barkii oo asagiina la bisan yahay oo diyaar yahay oo wasiiradii sugayaan baa wasiiradii war keeneen waxay dhaheen war baa naga soo gaaray garoowe kulle dowladooda la soo hadashay waxaa la yiri magaalada 2 baawur oo qaraxa ku jira shirarkii oo dhaxal kansal gareeyo 2 baawur oo qaraxa ku jira markii hore dadka dhan run bay u wada qaateen laakiin arrimihii markii dambe inay arrin siyaasadeed tahay oo lala soo hadlay oo la yiri shirka hal la baajiyo baa loo qaatay haddana waa ku noqonay waxaanu niri karaama darro waaye isimadii iyo annagii iyo wasiiradii intaanu dadkii siinay go ahead oo kaalaya niri oo aanu niri 9 saac bar ra'iisul wasaaraha waa loo tagayaa waa la soo kaxaynayaa madaxtooyadu seexanaya casha loogu sameynaya halkaasaana muxuu ahaa bari ka dhoofaya aanu niri dee waa ceeb qaraxu hadduu rabo ceebta qaraxa iyo ceebta daran iyo muxuu ahaa yes no ceeb waaye marka waxaan dhahnay dadkan ha loo tago oo shirarka yaan la baajin maya baa la yiri go-aankaas waa cad yahay magaalada security threat baa ku jira shirarka ha la baajiyo kii madaxtooyadan baajinay waxaan aragnay dhalinyaradii inay is-abaabuleen meeshii soo buuxiyeen sida sawirkaas adin soo diray aad arkaysaan markii ay muxuu ahaa buuxiyeenna annagu niyad jabna ma rabno karaamo darrana ma rabno gobolkaana waxa waaye waxaan u joognaa interestigiisa inaan shacabka iyaga niyad jabina ma rabno in uu nagu reebo raad kale nagu reebo iyo cuqdad iyo muxuu ahaaye waabaa meeshaan loo ii diiday iyo marmarsiyo iyo dhalinyarada laftirkooda ay kacaan oo ay yiraahdaan xorriyaddii baana la ka qaaday daraadeed anigu waa diiday in muxuu dhalinyarada la kala dareeriyo muxuu ahaay waxaan wasiirada mar labaad ku khasabnay in aan u tagno oo muxuu ahaa soo kaxayna at least oo aan madaxtooyada keeno muxuu ahaay dhalinyarada oo iska salaamo wasiiradu naguma aqbalinin in wasiirada la salaamo maadaama ay muxuu ahaay shirka baajiyeen oo wixii oo dhan kansaleen waxay dhaheen wixii bari ka bilowda aan lahana gaarsiiyo marka sidaasaan ku keenay muxuu ahaaye wasiiradu raalli kama ahayn laakiin dee option bay noo noqotay inaanan ceeboobin oo karaamadu naga luminin wasiiradu waxay ku noqonayaan garoowe ra'iisul wasaaruhu waa dhoofiya dadka gobolka joogaya oo dee ceebtu qabanayso oo martidu ay ceebtoodu qabanayso waa isimada iyo dadka iyagan anagu jooga waaye anagu saasaan u geynay hadduu la qosli lahaa iyo hadduu u gaalkacyeyn lahaa iyo hadduu la shaacireyn lahaa ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan meeshan siyaasadii waxba jirin dhalinyaradaas ha farxaan annaga dhalinyarada iyadu yaysan naga xumaan ayagana waxba u ballan qaaday wuxuu yiri isbartibada ayaa la dhamaystirayaa meelaha kalena wuu tegi kari lahaa laakiin nasiib darro markii aan ka soo noqonay si ballantu ahayd madaxtooyada la tegay oo ay ahayd inuu dego oo boorsooyinkiisa alaabta u saaraayeen waxaa la yiri madaxtooyada ma degaysid meesha ka timid ku noqo sidii buu u noqday deegaankiisii buu aaday laakiin dee asugu at least one step forward baa dhacay ugu yaraan yacni chaoskii jiray oo dadka qaarkood waa mudaharaadeynaa waa wareey ra'iisul wasaarihii baa la diiday annaga laftirkayga magaaladan amnigeedu wuxuu nagu yahay qaali buu nagu yahay meel fog baan ka soo qaadnay 2 sano xoogaa aad buu u fiicnaa maanan rabin in mudaharaadyo iyo balaayo iyo xabado iyo yacni intaas ay dhibaato nagu abuurto laakiin intaas relief bay ahayd ciyaalkii tareetna ma dhicin xabadana ma dhicin sidii bay iskula muxuu ahaaye shaacireeyeen waa la kala dareeray sidii baa lagu tagay asna cidiisiiba ku noqday laakiin dee waxay ahayd arinta ugu foosha xun oo dhacday waxay ahayd madaxtooyadii oo inta loogu tagay la yiri ra'iisul wasaare madaxtooyada degaysa oo la keenay oo soo dhex istaagay oo baawurka meesha irdeeda soo istaagay in la yiraahdo degi mayso orotag inta ayaa mushkilad dhacday dee muxuu ahaaye ceebtaas iyo fadeexadaasna kulli ragaalkacooda dhan ay saaran tahay qaybna waa iska muxuu ahaay hadda cuqdad badan ma uusan qabinin waa ka raali gelinay meeshiisii buuna ku noqday guriga uu galabta kasoo guuray buu ku noqday saasayna ku dhacday marka hadday saxaydii hadday fiicnaan lahaydba sidaas arrinta u dhacday dee waxyaabaha muxuu ahaaye loo baahan yahay in golahan oo kale loogaga hadlo oo xal laga gaaro
way fiican tahay puntland horey baan u sheegnay waxaa waaye inay ama federaalka banaanka ka marto oo aysan waxba ku darsan oon wasiir ka aadin oo agaasimo ka aadin oo qof shaqaalaha ka aadin oo aan isku filnaano iyo inaan la macaamilno waxba kama dhexeeyaan marka xamarna waa jira lug baan kula jiraa halkaana waa jira waxaana waa diidaya yeesno waxaas ma shaqeynayso waa qodob loo baahan yahay waxyaabahan oo kale in halkan loogaga hadlo dee kolley muxuu ahaayey raad waa nagu yeelanaysaa ama hadday noqon lahayd diidmadan iyo objectionkan hadda madaxtooyada loo diiday iyo annaga laftirkeena kala qaybsanaanta aan kala qaybsanay oo ah dad raadinayay in magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dadka ishaysigooda laga shaqeeyo iyo intaasoo waxaa joogay nin oo reer puntland ah taliyihii booliska joogay oo reer puntland oo nagu cawday oo la wilmaaday realo maradaha naga ridnina waxaa joogay aqoon-yahano reer puntland waxaa joogay kumanaan kaleeto oo ayaguna saraakiil ah taliyihii kulligood oo le anagu reer gaalkacyan kasoo jeedna waxaa joogay muxuu ahaayey niman kale oo eliit oo ayaguna kasoo jeeda xagga oo iska dhigayay dee reer gaalkacyood inay dad soo dhaweyn karaan maradaha naga ridnin ay yiraahdeen wallaahi waxay iska ahayd xaalad ka adag bay ahayd oo xarasha wasiiradan aniga dembi ma saarayo waa niman shaqaalo ah waaye junior waaye dee waxa weeyaan waajibkoodii amar baa lasoo siiyey amar haddii lasoo siiyana waxa weeye dee muxuu ahaa isimada gobolka jooga iyo shacabka iyaga anaga muxuu ahaa dadka iyaga waayeelka ah gobolka jooga dee anaguna go-aan waa qaadan karnaa waa dhihi karnaa waxyaabaha masiiriga ah oo gobolka dee waa qaadan karnaa dowladuna waxaan leenahay hadhowto annaga waa dowladayadii raalli baan ka nahay arrimaheeda iyo siyaasadeeda inaan galla ma rabno laakiin wixii annaga amnigayaga iyo shacabkayaga iyo dadkayaga noo keeni kara intaasoo kaleo amni daraa noo keeni kara ama consequence xun noo keeni kara beri ka maalin oo la leeyahay dadkii diiday muxuu ahaa martigelinta waa qaadanaynaa dee waana ku faraxsannahay aanan ka wada hadalno laakiin ma jiraan wax kale intaas aan idiin sheegay waaye waxaana jeclaan lahaa yani haddii laga doodayo saas in looga doodo laakiin waxba ma jiraan annaga goobjoog ahayn from the beginning to the end sidaas ahayd salaam calaykum